Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waa aabba Soomaaliyeed oo ku geeriyooday shil baabuur. Goobtuna waa magaalada Anchorage, gobolka Alaska, dalka Mareykan. Walaalayaal, ha loo soo duceeyo eheladiisa iyo qaraabadiisa iyo ilmuhu ka tagay inuu samri iyo iimaan ka siiyo, asagana jannatul firdaws ka waraabiyo. Allah u naxariistay. Aabbahan waxaa la yiri waa taksi ayuu wadaa. Gaarigaasi uu shilka ku galay yalowgaas aad halkaas uga jeediin, inkastoo aan muuqaalka qarinay. Muuqaalku waa graphic, ma la fiirsan karo. Meedka ayaa gaariga hoos yaallo, ma idinla wadaagi karo. Annagoo tixgelinayno ama ilaalinayno qalbiga eheladiisa iyo qaraabadiisa. Sidoo kale shacabka Soomaaliyeed, dadka intooda badan ma u adkeysan karaa muuqaalo noocaasi, sidaa darteed muuqaalka waan idinka qarinay. Hase ahaatee waa dareemi kartiin ama waa loo jeedaa gaari yalow ah oo halkaasi ku gidoomay. Meed ayaa hoos jiifo, meedku waa asaga, Allah u naxariiste. Gaarigana waa gaariga uu ku xamaalanayo ama ugu shaqeynayo ilmihiisa. Allah yarxam, Allah u naxariisto, qabrigiisa Allah u waasiciyo, eheladiisa iyo qaraabadiisana samir iimaan Allah ka siiyo. Waa geeri aad iyo aad u xanuun badan. Maamo Safiyo ayaa joogto magaaladaasi, bal Maamo Safiyo waxay ka warqabto ama intay ka ogtahay geerida aabbahan. Maamo Safiyo sidoo kale waxay sheegtay inay asxaab yihiin, dad aad iyo aad isu yaqaano ama deris ay yihiin ayay ii sheegtay. Wiil Soomaali oo wanaagsan aa dhintay oo Alaska dhowr ciyaala iyo hooyadood u joogto, oo baari ahaa, hooyadiis baari uu ahaa iyo aabihiis, oo hadeer le Kenya ka imaaday. mar hore joogi jira Alaska, laakiin hooyadiisu booqasho u aaday Ramadaan intii kusoo agsoomay. hadeer u imaaday, caawa halkaana laga qaaday. hadda weli maydkiisii meeshuu yaallaa, weli lama qaadin. baabuurkiiyaa bir ku dhacay maa la yiri, ma aqaan, waxba si fiican looma sheegayo. ilmihii way waasheen, xaaskii wareertay. alla iigu soo duceeyey. gruubkii waan iska dhaliidayo, taleefonkiibaa iga buuxsamay, codadka lasoo duuduubay. markaasaan iska dhaliiday, isbaysma haystiin. marka falwadaadkaas loo soo duceeyey, ilaahay u soo duceeyey, ilaahay u soo baryay, Allah u naxariista. nin wanaagsan oo ila taliyo ii duceeyo ahaan jira. ilaahay naxariista. caruurtiisii waa kuray oo markaana hadda ay soo wada baxbaxeen. ilaahay baan lama duubin because waxay dhaheen caruurtii oo dhan intay meesha kusoo jabeen, gaarigiiyo aabahood ku jiifo oo saa u masaxay. askartii way xirtay meesha, waxay dhaheen wax duubi kara iyo wax rikoor garayn kara. waa la diiday, wax rikoor garayn kara malahan. laakiin nin baa yiri, ninkii kow soo sheegay oo taxi driver ah oo carab ahaa yiri, anaa rikoorin haya. ha loo soo duceeyey wiilkaasi oo Alaska ku dhintay, oo baabuurkiisii shillo galay. oo wixii faahfaahin oon maqlo waan kuu soo sheegay. allah ay raxmo raaximo. ummadda ilaahay ha u soo duceyso. insha allah wixii dambe wararahoo ka soo kordha waan kula soo socodsiinaynaa. ha loo soo duceeyey in jannadii ilaahay geeyo. wiilka walaalkeena waa wiilkii xala dhintay, gaarigoo ku hoos jiraa, waxaa madoobo gaariga hoos yaalla weeyaan. allah ya raxmo raaximiin. ilaahayo mowtal khaflaha noo keenin. khayran way kuu rajeeysnaa. ilaahay baan kuu barya, adigana dalaayo ilaahay kuma tus. ilaahay khayr ha ku siiyo. assalaamu calaykum. Aamiin. Maamo Safiyo, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. dhammaanteen waxaa dhib qaba ilaahay nama tuso. ilaahay sharkooda naga badbaadiyo. shar gaariga iyo baabuurtan la wato laftarkooda waa dhibaato uun aan wadano. dad badanaa ku dhammaado shilalka baabuurka, maalin walba ayaa lagu dhintaa. ilaahay naga badbaadiyo. waa balaayo loo baahan yahay. adinkana ilaahay idinka badbaadiyo. dhammaan ummadda islaamka meel walbay joogaan, allah ka badbaadiyo, gaal iyo muslimba. walaalayaal, aad iyo aad baad umahadsantiin. insha allahu tacaala aan usoo duceyno walaalkeen. saad Maamo Safiyo aad ka maqasheen, waxa faahfaahin ah hadda lama hayo. ma lagu dhacay, ma asagaa meel ku dhacay, ma dhibaato kas loo geysta miya, mise waa shil iska caadi ah, lama xaqiijinin weli. insha allahu tacaala haddii arrintaasi waxa xaqiiqa aan ka helo waan idinla soo wadaagi doonaa. laakiin hadda muhiimaddu, sababtaan idinla soo wadaagnay muuqaalkan, in loo soo duceeyo ehelada iyo qaraabada, ilmaha uu ka tagayo, xaaskiisa,
inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Laga yaabo eheladiisa inay ku xiran yihiin channelkeena oo idin dhageysan doonaan insha Allahu tacaala. Walaalayaal soo duceeya, haddii xataa aysan ku xirnayn ha loo duceeyo, ilaahay uu ka gaarsiin doonaa inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo, asagana qabrigiisa u waasiciyo, kitaabkiisa midig ka siiyo, jannatul firdaws ka waraabiyo, dambigiisana u dhaafo insha Allahu tacaala. aad iyo aad baad u mahadsantiin walaalayaal. Muuqaalkaasi xanuunka badan, murugada badan, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. ilaahay ajar idinka siiyo, u soo duceeya adinkana. Fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka Qays iyo Raxma, subscribe taabo, gambaleelkana furo si aad u hesho notification. tan iyo kulantadeena dambe walaalayaal, waxaan idin rajeynayaa nabad iyo nolol. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.